gaalkacyo magaalo kobcaysa deegaan ahaan dhismaba kana guuraysa magaaladii astaantu heed colaadii tusaalayaashii xumaa kadib 8 sano haysatay amni midka ugu sareeya isdhaxgal iswalaaleysi u dhaxeeya dadkeeda oo markaan magacan kala lahayn sida magaalada isku bedeshay ayaa dhismuhu isku bedeliya taas oo ka tarjumaysa maalgashi iyo kobaca ku socda qurba joogta dadka hantida haysta ayaa maalkooda ku aaminaya magaalada gaalkacyo oo ka guurtay marxaladii lagu tilmaami jiray taas oo hadda ah magaalada ugu kobca badan Soomaaliya kadib amni iyo kala dambeyn dawladeed iyo iskaashi bulsho markii ay heshay inkastoo magaalada gaalkacyo ay ka socdaan horumaradaasi haddana weli waxaa muuqanaya in shacabka reer gaalkacyo aysan ku baraarugsaneyn sidii loo heli lahaa wadooyin mara xaafadaha gaalkacyo si looga baxo wada la'aanta jirta maamulka degmada ayaa waday muddooyinkii ugu dambeysay qorshayaal lagu hagaajinayo wadooyinka sidoo kalena dayactir lagu sameynayo leerar ku shaqeeya cadceedda si looga guuro mugdiga ka jira wadooyinka qaar iyo qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada gaalkacyo maxamed cabdi cilmi gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo ayaa sharaxaya nooca horumar ee ka socda degmada gaalkacyo sida aan isku haysano magaalada saddexaad ee Soomaaliya baan hadda anagu isku tirinaa inay tahay markii laga reebo Muqdisho iyo Hargeysa gaalkacyo guud markii la israaciyo magaalada saddexaad inay tahay baan u haysanaa haday noqoto dhinaca populationka haday noqoto baaxadda magaalada iyo haday noqoto ganacsiga marka wax badan ayaa ku soo kordhay gaalkacyo magaalooyinka kale waxay uga duwan tahay waa santarka Soomaaliya weey waqooyi iyo koonfur meesha ay iskaga darmaan Soomaaliya iskaga daranta weeye marka waqooyi ganacsiga ka yimaada iyo midka koonfur ka yimaada halka iskaga dhacaan weeye marka si gaar ah ka tahay magaalooyinka maalgashiga in ganacsatada ay ku soo dhiirato dhishashada degmada ayaa fursad shaqo u abuurtay dhalinyarada iyo injineerada ka shaqeysa magaalada sida uu sheegay injineer Cabdirasaaq Biif oo ka mid ah injineerada dhisaysa dhismayaasha casriga ee ku soo kordhay magaalada gaalkacyo horta dhismaha magaalada ku bato waxa dhahay 2020 wixii ka dambeeyay ama 2018 nabadda magaalada aad u fiican tahay taasoo sababaysa qofkii inuu ku aamino dhulka hantidiisii inuu dhulka gato ku maalgashto amnigaas magaalada u dhaxeeya labada sayd ama labada dhinac ba waxay keentay in magaaladii waxa maalgelin badan lagu sameeyo qof ganacsi badan laga sameeyo hadda ganacsi badan magaalada ka furmay waxa ka furmay sheeg waxyaalo oo waxa waaye moolal ah moolalkaas iyo waxa waaye iyo gaardinaas la sameeyay dhamaan way wadaagaan labada dhinac hadii dhinacaas laga sameeyo gaardin dadkan way tagi karaan hadii dhinaca laga sameeyo iyana way iman karaan taas marka waxay keentay dadka diaspora maqan ama dadka ganacsatada oo wax way maalkaas in meesha maalka ku aaminaan hadaa fiirsi magaalada hadda meesha u sareysa u dhax santarka mall weyn wax way weyn ku yaala hadaa fiirsi banaanka gaardino badan ku yaala hadaa fiirsi wax way stadiumkii oo ah isdhaxgalka iyo sportska maalgelin badan lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenka degmada ayaa mar kale tilmaamay in kobca iyo dhismayaasha casriga ay sababtay in bilicda iyo quruxda magaalada ay wax badan ay iska bedelaan nabadgelyada iyo wada shaqeynta labada maamul ee dariska ka ah magaalada waxa naga dhaxeeya iskaashi nabadgelyo oo dadka gobolkan ku nool ay ku midaysan yihiin labada maamulna ay ku hogaamiyaan runtii taasi waxay sababtay in magaalada horumarkeedu uu taabaqaado dhismayaal cusub oo casri ah iyo ganacsiyo cusub ay mar walba magaalada ku soo kordhayaan mar walbana aan ku dhiirigelino dadka qurba joogta ah in ay maal gashadaan magaaladooda dadka kale ee ganacsatada ah oo gobolka ku nool ay maal gashadaan waxa la wada socotaan in meelo badan oo hadda meelaha dadku ay isku yimaadaan oo lagu wada shaahiyo iyo hoteelo cusub iyo carwooyin iyo ganacsiyo cusub ay magaalada ku soo kordhayaan sidoo kale dhismayaal casri ah dabaqyo ah qaarkood ganacsiyo loo furayo ay ku soo kordhayaan marka waxaan oran karnaa magaaladu waxay maraysaa marxalad ay hore u socoto
Engineer Beef ayaa isbarbardhig ku sameeyay farqiga u dhexeeya dhismayaasha cusub ee magaalada ay ku soo kordhiyeen iyo kuwii hore. Sidoo kalena waxa uu tilmaamay sababta keentay in dadka ay u guraan dhismayaasha casriga. Magaalada dhismaheeda wixii ka dambeeyay 2020kii dhismayn waxa ku bilowday waaweyn oo ah dhismaynka moolalka meelaha wax waay lagu caweeyo oo gaardanada meelaha wax waa hoteelada meelaha masaajidada waaweyn moolalka dafiis magaalada aad u muuqata dhismahaas oo injineero badan oo gobolka ah ay yimaadeen taas keentay marka dhismaha magaalada uu isbedelo dhismaha magaalada dhismaha barafadka iyo dhismaha infrastructure oo wax waay dawladda labadooda waa isgarab socdaan magaalada bilicdeeda iyo dhismahana way isgarab siinayaan anaga wax waaye company ahaan dhismo badan magaalada ka fulnay oo wax waaye aad u waaweyn di moolal iyo masaajido iyo stadium ka arkaysiin aad u weyn asnaftiisa mashaariicdaas oo dhan magaalada waxay u keentay inay wax waaye maalgelin badan lagu sameeyo dhinaca dhismaha. Maxamed Cabdi Cilmi gudoomiye ku-xigeenka degmada ayaa ugu baaqay dadka wax haysta inay ballaariyaan maalgashiga shaqo abuurka iyo kobcinta ay magaalada ay ka sameeyaan. Horta dadku ganacsigooda iyaga xor u ah laakiinse qurba joogta qaasatan ka soo jeeda gobolkan waxaan oran lahaa bal qurba joogtii hore ee idinka horeysay maal gashatay magaaladooda warsada runtii waxay kala kulmayaan ganacsigoodu haday noqoto amni iyo haday noqoto bulsho maskax fiyow oo wax ka iibsanaysa oo population fiican leh oo horumar fiican leh bay kala kulmayaan. Si kastaba ha ahaatee magaalada Gaalkacyo ayaa si weyn isu bedelaysa sanadihii dambe kadib markii ay heshay amni iyo xasilooni hana qaaday isku duubni bulsho iyo mid maamul.